asalaamu calaykum kulanti wacan wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan. Mawduuca maanta ayaa waxa uu ku saabsan yahay 5 hab oo loo daweeyo adoo guriga jooga waxa loo yaqaano varicose veins. Xaaladan ayaa ku dhacda nooca labaad ee dhiigga ama xididdada dhiigga qaada marka laga yimaado arterieska oo kuwa ugu waaweyn oo halbowlayaasha iyo kuwa ugu yaryar ee loo yaqaano capillary-ga tiftaafyada. Arooryaasha oo Soomaalidu u taqaano veinska ayaa qofku isku arki karaa waana xididdada inta badan muuqda ee maqaarka dushiisa qofku ka arki karo. Xaaladan waxaa dhici karta qofku inaan raaxo darro oo markaa uu dareemo iyo sidoo kale dhibta marka qofka haysta maaha mid qofka lala dareemi karo ama la arki karo. Mararka qaarkoodna waxaa la soo jeediyaa in guriga la isaga daweyn karo si dabiici ah, tan oo wanaajin karta isla markaana yareyn karta calaamadaha qofku dareemayo, sidoo kale horumarin karta habdhiska dhiig wareega. Haddaba 5 hab ayaa loo tixgeliyaa 5 hab ee la isaga daweyn karo adoo gurigaaga jooga xaaladda loo yaqaano varicose veins oo ah mid xididdada loo yaqaano veinsku ay noqonayaan kuwa baaxadooda ay ka weyn tahay caadiyan marka loo eego marka ay normalka ama caadiga yihiin. Jimicsi joogta. Jimicsigu wuxuu wanaajinayaa ama horumarinayaa qulqulka dhiigga gaar ahaan lugaha, waxaana dib ugu celinayaa habdhiska dhiig wareega dhiigga ka buuxsamay xididdada loo yaqaano arooryaasha ee lugaha ee veinska. Noocyada jimicsiga ee talahaan lagu soo jeediyay la sameeyo waxaa ka mid ah lugeynta ama socodka, dabaasha iyo sidoo kale wadida baaskeelka. Muddada la sameynayo jimicsiga waxaa lagu soo koobayaa 30 daqiiqo iyo sidoo kale jimicsi dhexdhexaad oo aan ahayn mid marka aad u badan. Qodobka labaad, in qofku sare u qaado lugihiisa. Tani waxay hoos u dhigaysaa cadaadiska soo gaaraya xididdada loo yaqaano veinska ama arooryaasha. Sidoo kale waxay horumarinaysaa qulqulka dhiigga inuu dib ugu laabto wadnaha. Hanaankan waxaa loo sameyn karaa in qofku dul lugihiisa sida barkimada oo kale muddo u dhaxaysa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo. Waxaa kale oo la adeegsan karaa qalab casri ah sida alka muuqaalka idinka muuqata iyo weliba sidoo kale hanaan fudud ah in qofku lugihiisa uu ku tiirin karo gidaarka, taasoo ka dhigan in markaa qulqulka dhiigga dib ugu soo noqon karo. Waxaase muhiim ah in had iyo jeer markaa luguhu ay ka sarreeyaan ama ay ka kormarsan yihiin heerka wadnaha. Sidoo kale waxaa la soo jeedinayaa qofku inuu ka dheeraado inuu markaa muddo dheer u fadhiyo ama u taagnaado isagoo markaa wax dhaqdhaqaaqa aan sameynaynin. Qodobka 3, inuu qofku xidho taageerayaal. Taageerayaashani waxay qofka ka caawinayaan inay siiyaan cadaadis dhexdhexaad ah. Tani waxay horumarinaysaa qulqulka dhiigga ee lugaha, sidoo kale waxay yareynaysaa bararka qofku uu dareemayo ee lugaha. Waxaa laga heli karaa noocyada taageerayaasha kala duwan suuqa adoon u baahnayn qoraal dhakhtar, balse muhiimaddu waxay tahay in had iyo jeer ku dadaasho inaad qaadato kuwa markaa dhexdhexaadka ama sidoo kale aan cadaadis badan aan saaraynin lugahaaga. Dhinaca kalena waxaa la soo jeediyaa haddii qofku u baahan yahay inuu taagnaado muddo dheer maalintii inuu adeegsado ama uu xidho iyaga. Waxaa kale oo qofka loo soo jeedinayaa ka hor adeegsigooda inaad la tashato khabiir caafimaad si uu kugu dooro nooca kugu habboon ee taageerayaasha cadaadiska lugaha marka laga hadlayo xaaladda varicose veins. Qodobka 4, joogteynta cunnada u roon caafimaadka. Marka laga hadlayo cunitaanka cunno isu dheellitiran waxay ka hortagtaa qofka inuu noqdo mid cayilan ama buuran. Dhinaca kalena waxay hoos u dhigtaa cadaadiska ku dhacaya xididdada lugaha. Tani waxay horumaraysaa caafimaadka guud ahaan ee xididdada. Cuntooyinka la soo jeediyay waxaa ka mid ah cuntooyinka dahaarka leh ama kuwa loo yaqaano fiber foodska. Sidoo kale waxaa la soo jeediyay cuntooyinka ku badan tahay maadada loo yaqaano vitamin C-ga sida liinta noocyadeeda kala duwan iyo sidoo kale midhaha raspberry iyo strawberry. Ugu dambeyntii waxaa qofka loo soo jeedinayaa inuu yareeyo cunitaanka waxaa loo yaqaano milixda ama cusbada. Tani waxay keeni kartaa in biyuhu dib u noqdaan jirka, taasoo sababi karta bararka waxaa loo yaqaano. Iyo ugu dambeyntii inuu qofku noqdo qof had iyo jeer ku dadaala cabitaanka biyaha, tan oo wanaagsan guud ahaan habdhiska dhiig wareega. Qodobka 5, joogitaanka ama masaajka iyo sidoo kale in la adeegsado dhir dabiici ah. Hanaankan waxaa qofka lagu soo jeedinayaa inuu adeegsado joogtaan dabacsan oo aan ahayn mid adag. Tani waxay horumarinaysaa ama wanaajinaysaa qulqulka dhiigga, sidoo kale waxay hoos u dhigaysaa xanuunka qofku uu dareemayo. Waxyaabaha kale dabiiciga ee qofka markuu masaajka ama joogitaanka ku sameynayo lugaha waxay ka dhigan tahay in la yareeyo waxaa loo yaqaano astaamaha bararka. Haddaba hab nooceeya ayaa loo sameynayaa. Waxaa la soo jeedinayaa in qofku lugaha dushooda marinayo saliido u gaara kuwan oo ka dhigaya kuwa qoyan. Taas waxay u sahlaysaa in si fudud loo duugi karo. Waxyaabaha inta badan la adeegsan karo waxaa ka mid ah sida muuqaalka aragtaan saliidaha gaarka ah. Saliidaha waxaa ka mid ah cypress iyo sidoo kale horse chestnut oil. Labadooduba waxay yareeyaan ama hoos u dhigaan waxaa loo yaqaano bararka. Sidoo kale marka qofku iska daweynayo xaaladda loo yaqaano varicose veins waxaa qofka adeegsan karaa apple cider vinegar oo nooc ka mid ah mudka laga toojiyo tufaaxa. Waxaa la isku darayaa 1 ama 2 qaado oo tufaaxa mudkiisa iyo sidoo kale 1 koob oo biyo ah. Tani waxay ka dhigan tahay in hoos loo dhigo xaaladda loo yaqaano varicose veins. Talooyinka la soo jeediyay waxaa ka mid ah in qofka had iyo jeer ka dheeraado inuu si toos ah u masaajiyo ama u duugo xididdada marka xaaladdan loo yaqaano varicose veins
ay ku dhacdo. Ugu dambeyntii waxaa lasoo jeedinaya 3 talo in qof ka dheeraado xidhashada dharka markaa jirkiisa ku dhegan, tan oo caqabad ku noqon karta habdhiska dhiig wareegga oo markii horeba aad u liitay. Waxaa kaloo qofka lasoo jeedinaya inuu yareeyo xidhashada kabaha xidhibta dhaadheer kuna bedelo kaba markaa xidhibtoodu ay gaaban tahay. Tan markaa waxay wanaajinaysaa habdhiska dhiig wareegga. Ugu dambeyntii hadduu qofku isku arko xaaladaha caafimaad ee markaa varicose veins oo kasii daraya, waxaa loo soo jeedinayaa inuu la tashado khabiir caafimaad si markaa talo loo siiyo ama dawada ku habboon si looga daweeyo xaaladda loo yaqaano varicose veins oo inta badan ku dhacda xididdada loo yaqaano veniska oo aruurayaasha ah nooca labaad marka laga hadlayo habdhiska dhiig wareegga. Tan iyo kulan dambe ku mahadsantahay dhegeysigiina. Nabadgelyo.